waxay ugu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay cabdiweli oo ka horeeyay ninkan imika la doontay waa in la sameeyo xuduud beeleed xuduud reebada waxaa laga yaabaa xuduud beeleedna uu doonayaa isaguna banaadir buu xukumaa labadaas isma qabtaan waa talabaad xad beeleed buu doonayaa oo dad ku laayay oo lagu soo weeraray oo dad Soomaaliyeed u baahan dhaawac iyo dhimasho uu ku galay oo cabdiweli ka aqbalay waxa la yaab leh markii isaga la dooranayay waxa la tartamay oo ragii maasha ugu aqoon badan ugu cadaa kamid ahaa Axmed Ismaaciil Samatar markuu doorashadii xawar farmaajada gaar waxa la oran dalkaaga inta oo ku dhuco waxa uu ahaa ninka tuuliga u badan galiya Soomaaliyeed Axmed Ismaaciil Samatar uu yiri waxa yaala Ismaaciil Bugaaba ka horeeyay 10 sano oo ahaa wasiirka khaarijiga uu yiri waxa meesha yaala ninka xamar ku yimaado saa u dilayaan Soomaaliland oo dagaalamay Hargeysa Burciyo Booradiyo la sacan soo dagaalamay waa arrin la yaab leh taa waxa ka dambeysay shirkii doorashada lagu galayay Garowe waxa isu soo sharaxay ragga Soomaaliyeed ugu aqoon weyn kamid ah Soomaalilandna hormoodkeeda iyo aqoonteeda ugu horeeyay nasiib darro haddii ay tahay xuduud baa samaysanaya ninka Soomaaliland ka yimid la saacado ka yimid wuxuu ahaa tartanka ka qayb wax laga siiyo laakiin ma in la Soomaali waa tahay Soomaaliland ma tahay Soomaaliland ku noqo may ahayn labada saan ugu filan aqliyada taalo koonfur Soomaaliland oo la yiraahdo in kala tudurbaar lama wada lahaa dad badan kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan wali wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Samatar iyo Ali Khaliif iyo Ali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxaan u sheegayaa Soomaaliland waa wadayay marxaatiyadu waa maxay daahir riyaale ayaa ka guuleystay doorasho gacmeed oo walma wafowta silaayo oo ha hogaamiye sano oo lagu qaabilo 8 sano ku xukumay marxaatiyada Soomaaliland la wadalayay waxa ah xagla toosiye ayaa la tartamay ninka la yiraahdo Sayrici oo ku sigay oo dariiq kaga baxsaday inuu ka reeyo ما Soomaaliland la wadalayay oo loo simayo nin walba doodiisa ka dhigto weeye xamar waxa aan leeyahay idinkiina dab baa isku shidaysaa adduunkiina waa dab baa ku shideen